الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ضمان مدحدا قرنka ee kala duwan ee fulin iyo golayaal sharci iyo maxkamad garsoor iyo madax dhaqameed iyo ganacsato iyo qaar kale oo wada xusi kareen rag iyo dumar xirooliye caruur aad iyo aad baan idin salaamayaa intiina ka soo qayb gashay xafladdan waana soo dhaweynaya xafladda maanta waxaan si gaara u sii dhaweynayaa walaladeena imaaraadka carabta madaxda ka joogta ee safiirka ugu horeeyo iyo xubno kale oo ka yimid dowladda oo saaka soo gaaray somaliland ay fadhiyaan oo dadka somaliland maalgelinta u badan geliyey ah wakhtiyaalo adag aad iyo aad baynu ugu mahadnaqayn waynu u soo dhaweynaynaa sacab xoog waa ku soo dhaweynaynaa dowladda imaaraadka carabta madaxdooda dhammaantood somaliland waxay iskala taageen wakhti adag siyaasad ahaan aqoonsi ahaan dhaqaale ahaan somaliland wakhti ay ku jirtay wakhti adag ayay iskala taageen somaliland waa dad abaalka gudaha nin waliba halkuu noogu dhisay iyo wuxuu noo taray taariikhda waa u haynaynaa carabta imaaraadka carabtuna waa kow maanta ay tagta dhaqaalahayo siyaasadda somaliland ee arrimaha dibaddu waxay ku salaysan tahay nin waliba intuu itiro ayuu maantara ammaan tixgeliya ha xoog weynaado ha lacag badnaado magaciisu meel dareen ha gaaro ama ha taag daraado ama ha dhaqaalo yaraado ama ha dar yaraadee siyaasadda arrimaha dibadda ee somaliland waxa weeye nin waliba weelku ugu shuumaa ugu shubaya ninka qarannimada somaliland ixtiraama ee qadariya ee eren oo yidhaahda ama taakula maalina wax naga taraa abaalkaanu haynaa intaan leelbu nagu leeyahy ninka arki waaye qarannimada somaliland ama dowladda arki weyda xoog kasta ha lahaado dhaqaalo kala hasta ahaado anigoo kuma arkaya haddaanadi arkayn baanu leenahay qaran jira oo isku kalsoon ilaahay dalka ku abuuray ilaahay siiyey nimcada wada tashiga iyo tala wadaagga iyo dalkooda daafaca ayaanu nahay kuma habrano waa kaa xoog weynahay iyo kuma habrano dhaqaalaha aan wax ka heli doonaa kuma habrano qarannimadooda kii ogolan baanu gacan saasaarin aanu iskacan qaadayna taa waxaan doonayaa inay cid kasta aad u dhegeysato markaa taa ka soo laabto maanta mashruuc aynu joognaa taariikhda aan dheerayn ee dhammaanteed aynu wada xusuusanahay daad halkan fadhiyaa oo kursigan 7 sano ka hor ama 6 sano ka hor markii hawsha la bilaabayay waxay Soomaalidu tiraahdaa hal la toosan baan intuu leh dadka siyaasadda hogaamiyaha dalka ee madaxa dalka ee siyaasadda ka mid ah ee magaca leh ee la dhageystaa waxay gaarsiiyeen oo loo joogay oo meediyaha mariyeen markii laga gaaray dalka la gadayaa waa la iibsaday dii olayna yani heerka sal gaarsiiyey guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani wuxuu soo gaaray in dhahdo maxkamada la saaray madaxweynihii markaa silaayo iyo guddoomiyihii xisbiga aniga ahaa waa taariikh cad oo rekoorkeeda lahayo waxaa taariikhdu ay yaab tahay markaad adigu ka markhaad furto waxaad samaysay shirkii wadani ee ugu dambeeyey guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani isagaa maxkamadda saaray waayo hala saaray madaxweynihii markaa silaayo iyo guddoomiyihii xisbiga markaa oo aniga ahaa wuxuu xaqiiqsaday in ra'yigii uu ku socday iyo halkii aragtidii warkaay ay qaldanayd oo cidlo ahayd wuxuu u soo noqday siyaasaddii kulmiye ee mustaqbalka fog dalka lagu dhisayay qoraalka ayay taallay waana ta uu ku dhiibay ugu wareejiyey raggii martida uu ahaa ee kulmiye u tegay taladii xisbiga markuu aqoonsaday inuu ka doorhayo inay wataan
ويارجي يفشل كلية يقص عمر كواركي يسقى حكومي أو كورتي رجل مرتضى وهاي كلية وأنا وحيارها جروشيا قفك السياسي المركز حكومه ومخاطر فرابها بوت وحنا رأينا سوريين حزب القرق معارض واللوب هاي هذا ومراد أذكار كيسو وحنا ورث الصومال ودرت الصومالية السياسي قدما يسوي اسم خاطف رصيد عبد الرحمن سميه وكره وكور يجيو عدو فرايو إلى الحكرميس هذا تاسع أصلا تأخذ ضعفه سوماليلاند فيش كير محله مستقبل كمحين دوننا حزب الحرية مبادئ ديسو ومجورة مبادئ ديسو حزب الحرية حكوكا إيه دلكا midnimadiisa iyo cadaaladiisa iyo isku hayntiisa iyo wada heshiisu ay koob ka ahaato dhammaan Soomaaliland taawul u codaysay ummadda Soomaaliland waxa laga doonayaa dastuurkii ay u codaysay oo oranaya qodobadiisa ay koob ka tahay dalka ilaahay baa siiyay shacbiga aan leh awoodda maamulka shacbigu wuxuu u igmaday dawladdu oo dhisto ayuu u igmaday inay dalka u maamusho dawladdana waxa la furay oo xeer dastuur furaya nin kasta oo la doortay lagu dhaariyaa in uu daacad u shaqeeyo sinaan iyo midnimo dalka loo dhaariyo heer yahayba hadduu yahay dowladda hoose oo la doortay waa loo dhaariyaa oo dalkiisa lagu dhaariyaa hadduu yahay baarlamaan iyo hadduu yahay madaxtooyada waxa loogu dhaariyaa inuu qaranka mucaarad iyo muxaafid midnimo u shaqeeyo muwaadiniinta Soomaaliland ay dalka u sinaadaan halkay doonaan ay karaan halkay doonaan ka shaqeyn karaan sidaa darteed dadweynaha Soomaaliland waxaan u soo jeedinayaa inay daarta iyo ahdiya furiyaan oo dalka ay u sinanahay magaalo kasta oo khayraad loo sameeyo loo shaqeeyo oo Soomaaliland ka dhaxayso oo aan cidina sheegan karin oo aan meel kasta oo macdan laga helo ay Soomaaliland tahay oo aan la kala sheegan karin ee loo wada shaqeeyo واحد قال ودستور كيري ونكون عارنا فكرة أنا إنه كوكر لا دوننا أدون كوح نوع سافيا وني ولا ينوع سهولة وني ولا يسوي نص ورايا ما كانوا أرجع منه ما كانوا دستور كيما ستة وعرو دارت إنه قال ما كانوا كلهم منه ما كانوا قليات كيما سنير قبضوا صحنه الدل كيما جودها وامله تاسنا وافرين قول صاحب يوهياشيس يدريديسا وحكوا أمانيا إن الهرمات كانوا قيان تبدأناشها إن بالبرة ولا يشوا إن Soomaaliland وهيتو ذكرنا Soomaaliland والطنبانة محمد حاتوراعي رسول صلى الله عليه وسلم هل كاسو يستاجي مالتي ذكرت لبنانش قديد تركوا الرسول يبي أنتي شوت عشان سلاشك وحولي بالبرة يا له بالبرة محاكم جوابتين Soomaaliland باي ما أنت واحد أنا أفريقيا ما شقينسا ويضاف إلى Soomaaliland تراك جيس كأفريقيا الله هاي بدر أو ضمن الأدينة هل كان أفريقيا سوالف هذا مجال عد ولا ولا تبادة أو عد ولا يكتاب هل كان إما كأمر إنسان أو سوي ويرمون أو دنياشان لبن الله يبقى لله كبر ولا سيد عشان بدر وصله صدق محل ويقامنا ويقتناته wax iyadoo cabasho ma sheegto dibteedana ma sheegato inta ay dhashay inta ay si ayayda u tahay inta ay sodohda u tahay inta ay dumaashada u tahay dhammaan dadka oo dhanba haysa barbari waa hooyadii Soomaaliland taana hal ogaado kuwa kala kaga dayda gobolada kala kaga dayda mashaariicda la hirgelinayo dad badan waxay nagu canaantaan dawladda waxaatihin amuumbe ama agnaan ma sheegataan waxa qabataan ma faantaan diinteenna iyo dhaqankeena haddaad hawsha qabanayso ma istustus iyo ammaan ayaa loo qabtaa quraanka xaaraantinimeeyey qofka waayeelkii inta badan dadka dhisay ama caalamkaba wadadaan la aqoon waa majhuul dadka wuxuu qabtaa ma faano
markaa waxaan doonaynaa oon hor wadaa in layska bedelo caadada faanka iyo waxaan lahayn in lagu ammaano waxaynu qabanno ee la taaban karta hor ilaahay iyo dadkeena inuu qabana faan waanaan qaban waana waajibna lagu lahaa mana gallo ballanqaadin beela wixii la ballan qaaday kolba toortee la soconaya garoonkan maanta ah waa ogeydeen wixii ka dhacay maanta waxaynu ka joognaa garoon caalami ah oo gobollada adduunka ugu weyna oo ay walaalada imaaraadku inoo howlgeliyeen innagana waxaa laynaga rabaa inaynu u diyaargarowno sidii ummadda caalamka oo dhan halkan usoo mar lahayd geeska africa badankeedu mar hadduu garoonka ugu weynaa yahay mar hadday dekadda ugu weynaa tahay waxaynu u baahan nahay inaynu caalamka intaysan kable isagana aynu soo jiidano waxaan mahad gaara maanta u jeedinayaa ganacsatada waaweyn ee somalilan oo ah nimankii dalka halkan soo gaarsiiyey ama cashuur ha bixiyeen ama sadaqaha laga qaado ama warkay kulaato ha loogu yeedhay oo aan u malaynayo intaan ka arkaayo maanta inuu jaamac oobaan odayaasha u waaweyn ku fadhiyo oo ah cashuur biyaha ugu weyn ee somalilan aad iyo aad baan ugu mahadnaqay dad badan waxaan sheegay dadka waxtara in la yidhaahdo waa bujuulo la yaqaan dad badan oo fikradda garoonkan inuu soo noqdo oo dekendari ay samaysato ka mid ah ayaa waxaa ka raacay eed badan iyo xagxagasho badan iyo waxaana geyin uu kow ka yahay ilaahay caafimaadkiisa raajiye saacad cali shire waxaa kaloo maanta inala jooga oo dhibaato badan ka gaadhay baashe caawil oo dhammaantii wada garanaysaa intii lagu caayay iyo wixii ka gaadhay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa raggiinii arrintaa marka hore bilaabay iyo wixii ka gaadhay qarankiina u shaqayseen maantana magaceedii baa la arkaya waxaan ku soo koobayaa somalilan waxa ay qabatay oo ugu waaweynaa ay ka mid tahay mashaariicda imaaraadka ay geliyeen kharashka ugu badan iyo waddada ceer gaabo oo ay somaliland keligeed ay maalgelisay oo ugu mudan tahay doorashadii dhoweyto oo aanu weydeen inagoo layna ictiraafin inaynu dusha u reebeen maamulkeedii iyo dhaqaalaheedii iyo fulinteedii oo ay dhammaan shacabkuna isxil saareen oonay laba ku wada hadal oo xisbiyadu isxil saareen iyo siyaasiyiintu oonay labana isku xagxagan oo aynu nabadgeliyo iyo guul ku dhammaynay ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa kuwa soo socdana inaynu saasoo kale ka yeelno oo aynu hirgelinno inagoon isqabqabsanin inaga oo si wadanimo ah doorashooyinka u galla waxaan ku soo gabagabeynayaa mar labaad inaan u mahadnaqo iyo mar saddexaadba dowladda imaaraadka carabta madaxooda nagala joogaan somalilan aad iyo aad bay idinku mahadnaqaysaa madaxda maanta joogto iyo dhallinyaradii ka shaqaysa oo dhammaantood abaal weyn ku leh somalilandna abaalka waa celisaa waanu gudi doonaa insha allah mid inuu kaga danaa iyanu u baahannahay dowladda carabta waa dal aynu wax badan wadaagno waa islaam dhaqanka waynu wadaagna qabaliga ah waa dal yar oo dad yar oo naga dadan innaga haddana muddo 40 sannadood ah waxay noqdeen quwad caalamku dhalamkoo dhan tixgeliyo maaha lacag qura maaha dhaqaale waa ismaqalka talada iyo kala dambeynta iyo waxsuurada ay ismaqleen ayay ruush iyo maraykanba kaga adkaadeen sanadka ku hayaan maanta oo waxaana qaadanaa la qaaday inaynu taa kaga daynaynu u baahannahay oo taasoo kale yeelo waxaan aad u mahadnaqayaa dadkii soo qaban qaaday xafladan waxaan mahadnaqayaa intii hawsha ka qayb gashay garoonkan dhammaanteen waxaan ugu dardaarmayaa inaynu dalkeena ka shaqayno oo u diyaar garowno inaynaan cidna ku tiirsanaanin dowlad kasta iyo ummad kasta oo dhibaatooyin geeska jira ay ka mid yihiin gacan nabadeed baanu u fidinaynaa dad kastoo isaayad gudihiisa dhexdhexaad baanu ka nahay ninka abaal loo guyo waa mahadnaqana waan ugu weynaa kiina arki waana dhahayagu ma arkaan dad ku kalsoon baanu nahay